salaamullaahi calaykum meel kastoo dunida ka joogtaan magacaygu waa Idris Xasan Maxamed page kayga daawanaysa waa Idris Qiso page official sidoo kale waxaad igala socon karaysaa kanaalka YouTube-ka ku leh Idris Qiso channel official sidoo kale waxaana ka maqnay Instagram-ka iyo qaybta TikTok-ka muuqaalka toddobaadka waxaan ku soo qaadan doonaa 3 muuqaal oo ay duubtay CC kaamiradu muuqaaladan oo kale si aan u soo badiyo fadlan igu dhiirigeli oo page kayga like saar sidoo kalena qaybta YouTube-ka subscribe saaro gambaleelkana furo si ay kaaga caawiso muuqaaladan soo geliyo mahadsanid muuqaalkeena koobaad waxa uu ku bilaamayaa ninkan aan wada arkayno ninkani waxa uu eegayaa hooyadan iyo ilmaheega oo kuleel dartii uga soo baxay oo meeshan iska hurda waxa uu ogaaday hooyadu in ay hurdo ilmaheeguna sidoo kale ay hurdaan wuuna iskaga dhaqaaqayaa maadaama xaalka uu ogaaday in ay kala degan tahay waxa uu soo kaxaysanayaa baaskiil 3 lugood leh kaasoo ugu talagalay inuu ilmo yar oo meesha ku jira ama hurda in uu xado sida aan wada arkayno baaskiilkii ayuu hadda gadaal u soo bixinayaa hooyadu war kama hayso oo way iska hurdaa ninkani inta uu baaskiilkii ayar soo dhigtay ayuu rabaa ilmaha yar ee meesha yaala in uu xado maadaama la arki jiray dad xadaya waxyaabo kale laakiin ninkani waxa uu soo bareeray inuu hooyadan ka xado ilmaha yar ee barta hurda aan bal wada eegno xaalka ninkani iyo sida uu ilmahan yar u xadayo waxyar kadib aayar ayuu ku dhaqaaqayaa si uu u ogaado ilmaha yar inuu hurdo kadib hal mar ayuu gacanta la haleelayaa oo uu soo qaadayaa ilmihii yaraa hooyadii ayaa ku kacaysa oo dhanaysa wariyaa ilmaha xageed iga wadataa dhig ilmahayga kadib ilmihii yaraa ayay ka reebaysaa si hawl yaraana ayuu iskaga kaxaysanayaa baaskiilkiisii islaantii sodohda wahaydna qaylo ayay bilaabaysaa oo waxay eryanaysaa ninkii runtii ninka guriga iska leh gudaha ayuu ku jiraa oo wuu qaylayaa oo iga furtaa ayuu hayaa albaabka wayna dhaqaaqaysaa si ay uga furto albaabka maadaama meesha dhibaato weyni ay ka dhacday oo ilmihii yaraa lagu talagalay in la xado laakiin ninkii wuu baxsaday oo islaantii sodohda u ahayd ayaa eryatay ninkii kadib isagiina wuu soo baxayaa oo bannaanka ayuu iska istaagayaa kanaan ku noolnahay wax kastaba waad ku arkay hadda ninkaas waxa uu soo badheeray inuu ilmaha yar gebi ahaanba xado muuqaalkeena labaad waxa uu ku bilaamayaa 2 nin oo raba in ay gurigan jabsadaan 2 nin waxaa la socdaa nin kale oo saddexaad oo isagana ka ilaalinaya meesha dhaqdhaqaaqa iyo waxyaabaha ama dadka lugtooda ayna marnaba ayna ku fashilmin tuuganimadan waxbuu dareemayaa oo hal mar ay istabayaacayaan saddexdooduba kadib kii wax ilaalinayay waxuu iska seexanayaa barta maadaama mooto yari ay meesha maraysay sidaana loo arkayo inay nimankani toog yihiin si uuna u fashilmin arrinkoogan ay wataan ninkii meesha ayuu ku gabanayaa oo waxa uu eegayaa intay cagtu joogsanayso ama mootadan intay fogaanayso 2 nin kalena xagga ayay taagan yihiin oo waxay leeyihiin war mootadii ma nadaysay aanu hawsheena sii bilaabanay kadib 2 nin kalena hareeraha ay iska eegayaan si balayna hawshooda ay u sii wataan waxa uu leeyahay hadda hawshu way kala socon karaysaa oo shanqadhu way yaraatay ee aduguna xagga hore fadhiiso si ayna dhibaato noogu yiman annaguna aanu gurigan kala kicinay 2 nin ayaa hadda gurigii u tashanaya qaabkii ay u jabin lahaayeen maadaama in badan ay ku rafaadsan yihiin gurigan qaabkii u jabi lahaa gurigani waxa weeyaan guryaha inta badan laga maqan yahay ee dadku ay dalxiisyada ka aadaan oo nin gurigiisii sii qufushay ayay rabaan inay u daba maraan oo waxa yaalaba ay cagta mariyaan 3 nin in wada arkayno hore waxa loo dhigi jiray tuugu ma xidho dhar ama shaati ma xidho naga siran buu qabaa sababtoo ah haddii qabo la islaawo si ay ugu fududaato baxsadkiisu sida aan wada arkaynana weli alaanka way la dhiban yihiin si ay albaabkan u jebiyaan albaabkanna maaha dhayl ku jabaya maadaama ay la rafaadsan yihiin weli alaankaas weli waxay isku dayayaan in ay jebiyaan laakiin wuu suurtagali waayay inay jebiyaan
muuqaalkeena saddexaad waxuu ku bilaamayaa sida tan. Gabadha aan wada arkayno labada nin ee mootada wataa in badan ayay daba socdeen. wax kalena kama rabaane katiinad ugu xidhan qoorta ayay rabaan in ay ka dhacaan ama ay ka dafaan iyaga oo mootada saaran. wayna u soo wareegayaan oo kolba dhinac ay uga soo wareegayaan si ay fursad ugu helaan inta ay gaf ka siiyaan ay mootadana ula cararaan. hadda kolba dhinacyada ay iskeegayaan oo naagtana warba kama hayso labada nin inay daba socdeen maanta oo dhan oo adeegayga ay iska adeeganaysaa oo dukaan meeshana ay iska taagan tahay. kadib meesha ayay istaagayaan oo waxay rajaynayaan inay hal mar gaf ka siiyaan. waxayna ka baqanayaan odaygan meesha soo socday oo wax isdhaayaan odaygan ayaa idin qaban doonaa. haddana jiiro kale ay u soo gelayaan naagtan sida ay ugu boobi lahayn katiinadan ay xidhan tahay. weli meeshu saxmad ayay dadku ku jiraan ee way yara sugeen inta saxmaddu ka kala qaadayso. hal mar ayay soo ordayaan oo naagtii oona waxba warkahayn ay dahabkii gaf ka siinayaan. qaylo ayay bilaabaysaa hase haatee nimankii mar hore ayayba meesha iskaga tegeen. muuqaaladani hadday ku cajab geliyeen fadlan sheer dheh asxaabtaada la wadaag. mahadsanid.